waxay waxay gaar uga hayaantay oo ay ka dhex baxday bulshadii iyo kooxdii libaaxayd ee ay la noolayd. Sababtuna waxay tahay inay ku soo dhasho meel cidlaa. Hadda dhalahan ayay dhashay ugu yaraan waxay jiraan 3 wiig dhalahani oo dhalay yaryaroo cusub oo cagabaruur. Waxay hooyada halkan u keentay si ay u koriso, iyadoo maanta 3 cisho gaajaysan ayaa waxa si lama filaan ugu soo baxay bartii ay carruurta ku haystay dameer farow. Jaaniska ayay ka faa'iidaysay, markiiba way kacday. Kama aysan labalabayn, waa uriyey dameer farowgu, laakiinse ma arko. Waxay rabtaa inay ka faa'iidaysato, hadda ayay ku soo dhaqaaqday. Goobtu waa Kalahari, waa South Africa. Way soo gaatamaysaa, beerka dhulka u dhigaysaa. Waxay rabtaa dameer farowga inay ku boodo, kadibna sidaad arkaysa ay cunaha ka qaniinto, sidaa ay ugu dhamayso. Hadda weerarkii ayay bilowday. Waxay ku dhex dhacday raxan dameer farowga, mid baa iyada taargadu ah. Kii ayay iyarula jirtaa, waa daba socotaa. Hadda ayay ku booday, waa bahal xoog badan dameer farow. waanay adag tahay libaaxad quri in ay adeegato oo ay weliba kelideed qabsato dameer intaa xoog leeyahay oo 2 goor ka xoog weyn iyada ay leedahay jirkeedu leeyahay ka weyn. hadda waxa ay u suura gashay inay cunaha iskaga duubto, waa halkii taargetkeedu ahaa. waayo cunaha markay aad u qabato naqaskaa ku dhagaya, waana sida fudud ee ku dhiman karo. hadda waxaynu korka ka aragnaa ugaadhi oo aan fariirsan oo arkayay sidii hortooda loogu cunay dameerkan. hadda shaqada kale u taala libaaxadu waa inay ugu yaraan 1 kilomitir iyo badh ama 2 kilomitir u jiidaa dameer iyada jirkeeda 2 goor ka weyn halkii dhalheedu ay joogeen. dhalihii iyaga samirkii ayaa ka dhammaaday. hooyadood bay dhowrayaan, maxaa ku dhacay bay isleeyihiin, waa gaajaysan yihiin. naaskii yaraabay u ooyayaan oo kuwa qaylinaya, talow maxaa ku dhacay, miyaa la dilay? kaasi waa aar horuu soo fadhiya, isagu kuwa kale waa ka qaylo badayey. waxay dhowraanba oo ay hooyadood sugaanba, amin dambe ayay hooyadood u iman doontaa. hadda waa kuwaasoo waa gaajaysay. hadda waxaa loo keenay dameerkii. ilmaha yar inkastoo aanu weli bilaabin cunista hilibka, markii ugu horreysuu hilib cuno weeye, wuxuu isku dayayaa neefka inuu dalooliyo, laakiinse waa shaqo adag inuu haragga ka saaro ama uu meel ka daboshado. hooyada ayaa ka caawin doonta oo u daloolin doonta. hadda hooyadii ayaa diirka uga saartay, meel jilicsan bay u daloolisay. halkii ayuu afka la galay oo dhiigga uu habayaa. halkaasuu dhiigga iyo cadka ka shaqeeyaa. bahal caydhin ma daayo, inkastoo uu xawayaan yar yahay oo dhashay, haddana Soomaalidu waxay tiraa bahal caydhin ma daayo. waa dhargayaa. hilibka talaajadu ma hayaan, kayntaasay dhiganayaan. 3 cisho ayuu haynayaa neefkaasi, oo iyadii ubadkeeda cunayaan, gaajadii soo martayna ay kaga raysanayaan. hadda waxay seexdeen riito fiican markii ay dhargeen. laydh fiican baa dhacaysa. meeshanay joogaan waa meel aanay hore ugu noolaan jirin, ma aha deegaankeedii. waa deegaan ay u soo hayaantay si ay ugu dhasho ilmahan. meesha waxa ku badan ugaadha, dhan walba waxa ka xiga oo ay u dhaqaaqdo ugaadhii. ugaadhan waa xoolaha libaaxa, waa hantida libaax bay iska leeyihiin ugaadha kale. isagunbaa kolba neef soo qabsanaya. hadda waxay carruurtii siinaysaa si aad u fara badan inay naas badan jaqaan, waayo waxay rabtaa inay safar galaan. hadda waxay u xadhka xidhan doontaa inay xaggii reerkoodii hooyadeed iyo walaalaheed qabtaan. hadda socodkii ayaa bilaabmay. socdaal dheer ayaa la geli doonaa. waxay ku noqonaysaa dhulkii ay ku dhalatay, deegaankeedii. hooyadeed macaan oo aanay muddo arag ayay u tegi doontaa. jidkuse waa dheer yahay, qorraxduna aad bay u kulushahay. inkastoo ay tahay roobku da'ayo, haddana markaan roobku da'aynin hiidka cadeedu carruurteedna waa ku dhib. hooyadu aayar ayay u socotaa, waayo carruurta yaryar ayaa gadaasheeda kulba lasanaya, kulle istiriga kulle ciyaaraya. hadda waxay soo fushay buur deegaankeediia. way badhaaminaysay. waxay indhaha ku dhifatay hooyadeed iyo hablii ay walaala ahaayeen, u bartaa iyaguna ka sugeegaya kuna faraxsan imaatinkeeda, waayo muddo ayay sugayeen. dooxadaasaa u dhaxaysa. dooxadaa markay ka soo tallowdo
wax yar bay u soo jirtaa, hadda way soo gaari doonaan. Xaggan kalena waxaa ka soo socda koox qayb ka mid ah raxanta libaaxyada ee walaalaheeda oo ugaadhsi ku maqnaa, laga yaabaa inay maanta sooba waayeen. carruurtii bay wadaa, carruurtii waxay la kulmi doonaan markii koowaad ayayadood, habaryarahood iyo dee abtiyaashood ayay la kulmi doonaan iyo aabbahoodba. meeshu waa dooxo barwaaqa ilaahay dhigay oo baad iyo biyaba ay diyaar ku yihiin. libaaxu kama maarmo koox. libaaxadduna ama gooshan waxay u baahan tahay kelideed ma sii korsan karto carruurta, waxay u baahan tahay inay la dhaqanto koox dhan oo markay ugaadhsi tagto loo sii ilaaliyo carruurta. iminka waxay la ciyaarayaan ayayadood carruurtii, waa faraxsan yihiin. kolba dhinac bay ka imanayaan, kolba dhinac ay ka imanayaan. hadda waxay salaamaysaa hooyadeed. libaaxu madaxuu isku salaamaa, madaxay hooyadeed ka dhuuqatay, waa leefaysaa. leefistaasi waxa weeye hooyadeed inay u xiistay ama halka bini'aadamka dhunkashadu ugu jirto. libaaxyada yaryar ayagu waxay la ciyaarayaan carruurtii ilmaadeerada ahaayeen ama habroodaagga ahaayeen ee habaryarahood dhaleen. way faraxsan yihiin. markii koowaad waxay ku jiraan gacan sayfa. waad ku mahadsantay daawashadaada. fadlan laygta iyo falowda iyo sheerta noogu dadaal, adigana waxba ku yeeli mayso, annagana waa noo dhiirigelin. Thank you.